saddex sano ka hor maanta oo kale mid ka mid ah qaraxyadii ugu weynaa dunida ayaa ka dhacay isgoyska Soobe ee Muqdisho 587 qof oo rayid ah oo ganacsato iyo dad wadada marayay isugu jiray ayaa ku naf waayay. Axmed Deberdayow waa mid ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarka. waxa uu dib u xasuusanayaa maalinkaasi iyo sidii uu ku badbaaday. maskaxda gadaal loo raaco يعني معنا مروذي معنا ويلوا معنا ونود بيسا لكن الحمد لله الشكر الله قدرتي إلهي كان الحمد لله الله وحلال وحده معنا إلهي كان وإله لو مادنا الحمد لله الشكر الله أنا قد وكنا لنا taalada 14 Oktoobar ayuu u yimid si uu ugu duceeyo shan ka mid ah saaxiibadiis oo maalinkaasi geeriyooday. waxaan ka mid ahaa raggii ku shaqaysanayay Zoobo furiyaashii waxaad ku sameeyay aniga maalintaas Ilaahay iga badbaadiyay alxamdulillah alshukr waa iska caafimaad qabaa inkastoo yani rag badan oo saaxiibadeed ahaa oo meesha aan ku wada shaqaysanay oo meesha aan ku weynay rag badan oo yani furiyaash meesha ku qoraan saaxiibanaay oo magacyadooda xitaa aan xusi karo meesha ku dhinteen wiisha kamid ah maxamed cabdulla kamid ah maxaa cunayr la kamid ah rag badan oo meesha aan ka wada shaqaynay shankara ku jiray dad badan oo yani meesha magac ku leh oo taariikh ku leh oo intaas oo sanaad iska wada shaqaynayna raggiya meesha naftooda ku waayeen. inkastoo saaxiibadii uu ku waayay qaraxii Soobe ganacsigii yaraa ee uu lahaana uu ka baaba'ay haddana waxaa garab qabtay saaxiibkii kale. aniga makiinadii oo macnaa meesha ii gubatay waa la ii gaday wiil aan saaxiibnahay oo maqana ii gaday maxamed cabdullaahi la dhahaa maxamed cabdullaahi jaamac allah ninkaasaa ii gaday makiinadeeda waa soo noqsaday shaqadeeda sidii aan wataa wixii nolol maalmeedkii meesha ka sii wataa Zooban jooga. Axmed oo ah farsamo yaqaan furayaasha ku qora isgoyska Soobe murug iyo calool xumo ayuu dareemayaa walise ma uusan rajo dhigin oo waxa uu ku ganacsanayaa isla goobtii uu 3 sano ka hor ku sigtay. alxamdulillah alshukr kulli Soomaali waxa waaye yani ma rajo dhigayaan waa rajo aad u fiican taa. dhismayaasha iyo ganacsigu waa ka soo kabsasho og yihiin qaraxyada ka dhaca Muqdisho dadkase waxay ku tahay mahadho raad ku reebta goobtan waxay mar u ekayd qabuuro iyo deegaan dhulgariir uu ku dhacay. maanta se waa mid camiran oo 3 sano kadib Soobe waa sidiisii. 14 Oktoobar maalin madow oo ku suntan qulubta shacabka Soomaaliyeed ayaantaasi oo Soomaalidu ay weyday halyeeyo iyo sidoo kale jiil cusub oo mustaqbalka dalkan qayb ka noqon lahaa. waxa uu ahaa weerar argagixiso oo dunidu ay si weyn uga hadashay kaasi oo arxan darro lagu tilmaamay. taaladan ayaa astaan u ah oo Soomaalidu ay ku xasuusan doonaan. Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.